gudoomiyaha guud ee masjidka Abu Hurayra magaalada Toronto ee dalka Canada Sheekh Cabdilaahi Cali Xaaji Cilmiye warbaahinta kula hadlayay gudaha masjidka Abu Hurayra ayaa go'aantii sharaxaya asaaskii masjidkan iyo dubahaynta ay ku sameeyeen masaajidkan waad la socotaan masaajidka Abu Hurayra wuxuu soo bilaabmay mar aad u horeysay oo oran karo wuxuu bilaabmay 80maadkii markii dhalinyartii ugu horeysay ay yimaadeen wadankan alxamdulillah wuxuu soo jiitamaba 2006 ayaanu iibsanay masaajidkan hadda aanu fadhino ka ku xiga oo $3 milyan iyo $500 aanu siisanay alxamdulillah dadweynihii ama wase congregationkii ama dadkii ku tukanay masaajidka ama dadkii isticmaalay oo sii farabatay daraadeed ayaa waxay kaliftay meeshii oo yaraatay inaanu iibsano dhismaha ku xiga oo markii hore ahaan jiray kaniisad Sheekh Cabdilaahi Cali Xaaji Cilmiye gudoomiyaha guud ee masjidka Abu Hurayra magaalada Toronto hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in walihi masjidku qabiye yahay in doonayaan mustaqbalka inta uu hadda yahay in laga sii balaariyo isagoo mahad celiyay dadka ka qayb qaatay wajigii hore ee dhismaha masjidka isla markaasna baaq u diray dadka doonaya in ay ka qayb qaataan dhamaystirka masjidka iibkii masaajidkan oo qiimihiisu ahaa almost $9 milyan alxamdulillah rabbil alamin wa ilaahi mahdi subhanahu wa ta'ala iyo juhdigii dadweynihii ku noolaa magaalada Toronto iyo guud ahaan caalamka oo runtii gacan weyn ka geystay iibsiga masaajidkan aanu iibsanay alxamdulillah sad u aragtaan maanta caawa oo lagu tukanayo salaadii cishaay ugu horeysay iyo taraawiix ay noqonaysaa marka wax ilaahay loogu mahadiyo runtiina jaaliyada oo sii balaaranaysa daraadeed ayaanu u iibinay masaajidkan cusub waliba qabyo aad u weyn weeyaan waayo wadankan sidii wadamadeeni oo kale maaha waxa meel marka soo gashid waxay u baahan tahay dib u habayntuna maaha dib u habayn adigu aad ka samaysanaysid waxay u baahan tahay injineeradii inay eegaan halka biyuhu marayaan halka magaranaysa leerku marayo sida loo bedelayo marka arrimahaas oo dhan waan ku guda jirnaa injineeraha loo diray waxay qaadanaysaa ugu yaraan sanad ama 2 sano inay qaataa laga yaabo inta injineeradu ka shaqeynayaan dabeetana waxa loo gudbinayaa dawladda hoosena markaasay iyaduna wixii ay ka bedeliso iyo wixii ay ku kordhinayso sheegaysa dabeetana markaas la bilaabay in dhismihii la galo lacagtii masaajidkan waa la bixiyay almost $9 milyan bahayd laakiin $1 milyan oo dhow ayaa amaah aanu dadweynaha masaajid ku tukada aanu ka amaahanay amaahdii markana lagu leeyahay marka waxaan farayaa dadweynaha waxa weeyaan waa wado idin furan inaad ka soo qayb gashaan wali masaajidkii ma dhamaanin deenkaana waa lagu leeyahay